أصحابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر وكاس مال والبا وحكى الصعود الاسماء وحان تغي نيروبي سيدان لمد أي مالو بالاسماء وصعودة أو صومالي اللي يهين سؤال شغل ويدينا وحي طاح يا كنت بينتون اللي بنتا xoolaha dhulka aad gelinaysid ma nacfan doontaa dalkaaga inaad dhisato wax kaaga wanaagsan laba yaratay Soomaaliya marka meel walba waxa ka socda every side dhinacaan waxaan joogaa hadda hotelka Colow qolkayga ayaa ka dhex sawirayaa waxaan arkayaa meel kasta oo dhismo ka socoto halkaan waad aragtaan halkaas waad aragtaan waxaasoo dhan waa dhismo socda iyo kuwo dhisan waxaan waa dhismo waa aragtaan waa socotaa waa hal dhinac waa daaqadayda keliya inta ku aadan oo dhinaca number 4 dhinaca number 4 weeye haddii dhinaca kale aan tago dhinaca maxduuda xaggeeda ama dhinaca bakaraha xaggooda ama dhinaca maxay tahay waa bari saano kala weeyaan sidaano kala waa wallahi waa saano kala iyo ka daran waliba weeyaan marka anigu waxaan ku waarinayaa qurba joogay iyo qof kasta oo daawada fiidiyooga oo ku fikiray inuu meel wax ka dhisto dalkaaga wax ku dhaama wallahi ilaysan jirin qabiil iska daa reehel bahaysta iska daa dalkaaga dhiso asaga unbaad ku dambayn doontaa waxay ugu yiraahdeen xamara aadan qarax dhibaato balaayo ayaa ka jirta wallahi baa ku dhaaranayaa Nairobi waxaan joogay bil no astaghfirullah waxaan joogay week iyo bar wallahi ma seexan waayo cuntada iyo hawada iyo waxaasoo dhan iyo dhulka iyo socodka waxaasoo isma keenaysaa naftaadii kuma aha habi kuma aha laakiin marka halkaan imid waxaan joogaa 3 cisho hadda waxaan seexdaa xilligii aan ka seexan jiray Mareykan oo ahaa 11 PM ama 10:30 PM wallahi ka hor hurday qabataa markaasaan dhinaca soo bedel hurdada aan seexda kaliya Soomaaliya hal iska daayo dul shisheey jacayl iyo xoolahaaga aad gelinaysid dal kale waxaan ku waaninayaa oo ka codsanayaa oo walaalayaal idin sheegaya si daacad ah dhulkeena dhista iska ilooba reehel bahaysta maya reehel waxa xamar anigu dadku dhashay mii waa ku soo koray laakiin dadku dhashay miihi laakiin wallahi baa ku dhaaranaya qof soo ku fiirinaya iyo qof goorayata iyo de wixii ilaahay kula kulsiyada waan gooniday laakiin purpose ahaan qof ku soo ordaayo ama maaragtay wax dhibaato ku soo garay ma jirto umadaas ay la mid tahay walaalayaalo waxaan ka codsanayaa dalkiina dhisataan oo haddii aad dalkiina dhisataan nabadda way soo noqonaysaa sababtoo qof walba waxa waaye wuxuu ka fikirayaa in ismiisi xoolihiisa aysan baabi'in ama dhismaha iyo xoolaha walaalihiisa aysan baabi'in nabadeynta dhulka ayaad ka qayb qaadanaysaa waayo xoolaad haysataa laakiin haddaad Nairobi iyo Turki saan kala u dhisato maxaa dal aadan la marka hal iska daayo meelahan Kenya iyo waxay dhahaan Turki iyo waxaas waxba ku tari maayaan iyo carab waxba ku tari dalkaaga ka shaqeyso dalkaaga dhiso dad ilaahay wax ku siiyo oo awoodda xataa inaad boos gadatid ma kiskis baa lagu dhisaya shirkada waxaa jira anigu shirkadna uu noqon maayo advertiser laakiin shirkada waxaa jira xisa oo dhowr ah jira oo dhisaysa xalada ay dhisa ku dhisaya beesh retirementiga dadka reer Mareykan waa isnaqaana dad shaqaysta oo heer sare oo caalami ah oo ayaa timi oo lacag badan laga jiro maxay tahay bishii sanadkiina lacag badan meel u dhiganto ayaa timi retirementigiina
قاطع halkan hadduu ilaahay idin gaarsiiyo soomaaliya waad aragtaa war xataa haddaad waxba ka dhisan kartaa maxay tahay haddaad iska degto maxay tahay sartaas waa $350 wey apartmentadii $350 oo laba 3 qola weliba $350 weeyaan soomaalida kan halkaas taamka ku qaadanaysaa ku guursanaysaa adoo oday ku ilma dhalaysa hadii kale ilmahaaga iyo halkaas kugu imaanayo soomaalida kan haddaad tahay gabar iyo wiil intaba waa saas weeyaan uma baahnid inaad maaragtay lacag meel dhisato haddaad awoodin dee waxaan ka wadaa eeg basartaas eeg middaa fiiriya waxaan dhismayaa ka daran waxaan dhismaya bal eega waxaan dhismaya adinkii sugaa inaad dhisataan oo degtaan nabad way ka dhalanaysaa insha allah tacaala insha allah nabad way noqonaysaa ama sooner or later waxaa waqtiga noqotaba nolol iyo nabad waad ka helaysaa insha allah tacaala soo duceey dalku soo duceeyo qabiilada iska tahay qabiil hel baa haysta qabiil wuxuu ku taramaya qabiil ya qabiil wuxuu ku taraya ninka madaxweyne noqdo wuxuu ku taraya walaalka ma aabaha ma aha in adeerka oo aabaha iyo labadii aabay wada dhasheen ma aha wuxuu ku tari maayo qabiil wuxuu ku taraya qabiil sheegay qabiil wuxuu taraya wuxuu tari maayo waa dal duniye waa dawlad burburiye waa lagu naar tagaa weliba ninka qabyaalada aad ku gasho dad bad kulanaysa dad bad ku oleysanaysa qabiil wuxuu tari maayo wallaahi cid haysto iyo inaan kala jeclayn wakaas jidkeyga bajaajkeyga raaca jidkeygaan ku socdaa ku lugaya habeenkii iyo goor walba aan doono hoteelkeygaan jiiftaa si nabadaha lagu shaqeeyaa si nabadaha ku seexsan waa kusoo kaca alxamdulilah marka walaalayaalo waxaan idinku waaninayaa inaad dalkiina aad dhisataan baan idinku waaninayaa halkani waa Kureed Media waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu